xilligii sayidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ayaa haweenay u timid nin saxaabi ansaari ah iyo inuu taabica ma xusuustee ayaa Madiino ila habeenima cisho soo aaday salaad cisho uu soo aaday asagoo masaajidkan soo gaarin jin baa tafay ninkii jaan iyo xidid meel ku dhacay waa la waayay ruq iyo raad midnaba waa la waayay mudda la sugay waa laga samray islaantiisi baa tiraahday inta ka badan sayidina Umar uma sugi karee balse ilaa waxa ku dhacay ninkeygii lama hayo dhowr sano oo waxa ku dhacay cisho uu naga aaday isha aragtay burbayt dib dama lama hayo wuxuu yaa qoyskeetay qoyskii dadku yaqaan tolkeed buu yeeray gabadhu warkay sheegay marunba haawa runteed baa leeyahay ninku hebel baa la yiraahdaa tolkaanu aha anaga naqaan lama hayaninti raad iyo raq min lama hayo wuxuu sayidina Umar 4 sano baad ninka sugaysa 4 sanaad ka war xalqa laga war dhowri nin ma guursan karti haan la bila gabadha laga warqabo 4 sano markay ku dhamaato waxaad ka soo qaadaa ninkaada inuu dhintay 4 bilood iyo 10 habeen tirso 4 bilood iyo 10 habeen marka tirsato 4 sano ay ka soo horeysay marka waa fasaxan tahay ninka doonta guursado sidii bay yeeshay 4 sano ay sugaysa 4 markay dhamaatay u timid Umar haddii Umarow 4 sano ka hor baan ku imid dibkaasaan ku sheegtay tolkay baad codsatay way maqraatay kaceen haddana way waaka 4 waan soo leefa ka waran bay xulo tolkay ii soo celi haddana nimanka uu yeeray ma runteed baan wax ma xisaabin ma dhamaysta 4 sano sayidii waxa leeyahay waa runteeda way dhamaysatay wuxuu riwaayay 4 bilood iyo 10 habeen ciidatul wafaad bilow 4 bilood iyo 10 habeen baadana soo dhamaystay way ku soo noqotay waan dhamaystay tolkeed buu loo yeeray waan la isku soo baash sidii ma qori raacin loo baahan haa mukay noqotay wuxuu orod guurso nin dambe guursatay aroostay gabadhu nin dambe reer u ah ninki jinki dafo socda waak ninki jinki u dafay oo socda waaba kaba islaantii iyo ninkeedii iyo qulub furda la isgeliyay sayidina Umar baan xukumo sidan sheegay baa leeyahay ee naga leex waa loo soo dacay Umar baa loo yimid Umar bakoor labadu wuxuu yiri midkiin uu iska dhaqaaqi ahalkiisa la soo xiriir wuxuu doon waad iska dhaqaaqaysaan dumarkii waad ku ciyaaraysaan xuquuqda ku tumanaysaan hadhowna islaamta la soo istaagaysaan war maxaa kugu dhacay xuri yaa amirul muhaddadagin dibba i gaaray cuurdar baan leeyahay maxaa jira habeen oo cisho u soo socda beejin afdoobeen mooriyaan jinba yaashay Umar waa yahay xagee ku geeyay ma aqaana wari meel ay geeyay nimankaas ay dafay jin gaala ah way haystaan maxbuus ma u ahaa ma cunto kuwa inta la joogtay misaal buu wadiin durba Umar hawsha xun ma cunto ku ahaa waxyaabaha aan bisinka ah loo qabanay bismillah aan la dhihin raashinka bisin aan loo qabanay shaadintu cunaan ba wax ka cunaayay jin ila gaalay ahaayeen hay ma cabitaan ku ahaa biyo marka la shido aan la khamiirinin yaan ay cabi jireen ma la cabi jireen sidoo soo baxsatay xulaano la haysto maxbuus oo u xiran yaa jinka gaalada ay haystay iyo jin muslimiin ah dagaalamay jihaad baa meesha ka bilowday nimankii jinka gaalada ah baa lagu jihaaday waa laga adkaaday xoolahood baa la qariimaystay maxaabiis la qabtay baan ku tirin jinka muslimiinta way ifir maxaa ay kooba insi orod maxaa ay laga keenay madina laga soo daf wayaa ku soo daf jinkan meeqasan intaas saro waxay dhaheeraan oo muslimiin baan nahay gaaladina waan jabinay waxaan oqaaniyay iyo sabaayaadan anaga iska leh adugu laba mid kala dooro ma insigii muslimiintii madina ku celinaa mise waa noolaan wada la jihaadi anaga maxaan noqon wuxuu waxaan macamiri garee mar oo insigii ku celiya wuxuu waxay dhawaaya ina ka beedhay waa ilaa waxay habeenkii gabalku ma ku dhacdad baan iska dhigayna oo ku sheekano waan kula soconaynaa maalinkii insigu ina arka marrabne dabayl socoto wis loo soo wareegaysan iska dhigayna waan ku hor soconaynaa dabaysha fiirso oo daba soco ilaa Madiina ku geeyno habeenkii sida dadkii ay sheekeen jireen waanu soo soconay soo safray show adduun ila hijr ila ka tuuray saan u soo soconay isoo wadee habeenkii igu sheekeen dad iskaga dhigahayeen maalinkan dabayl waswasle waarta Soomaalidu markay dabayshu kacdo fartay ku riixay saa inay dhaan jin baa watay waa taqaanaa
soomaalida dabaylaha kaca waxay ka qabaan cuqdad bay ka qabaan faryada bidix baa lagu riixaa mise tana la riixi jiray soo midigta faryada bidix miyaa wixii lagu riixi jiray almuhim madiinay saas madiina u keenay markaas dheen maca salaam qisada marka qaabkaas u dhaxay wayna sugan tahay baaqi iyo qeyrkii baa soo saara bisanadin saxiix